anoo jinkii wabagiyo qaryoolay nabad ku joogo teestada u heesta ku dhex jira barwaaqa jini soo jirmaadiyo tujaada lila dhacay jareera imuu qaban bismillah alxamdulilaahi xamdan xamda washukru lilaahi shukran shukra wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin wabacd maanta uma soo fariisanin muxaadaro ama inaan qof wax ka sheego maan soo fariisanin waxaan u soo fariistay maanta meeshaan ku dhashay kuna soo barbaaray quruxda iyo haybada ay leedahay oo aad ugu farxay markaan anigu arkay baraha bulshada la soo dhex dhigay arkay aad ugu farxay ayaa rabaa in aan wax ka iraado awalan inta wax dhiin kar warta ila fiirsadaba quruxdan joogan meelahan ku dhasnaan ku dhalanay anaga aanu ku soo barbaarnay waxa fahmi kara kaliya reer liibaanta isan u jeedin ana u qurxsan tahay u kala kacsan tahay waa degmada Qoryooley xaafad waliba ayadoo guud ahaan isku jirtana fiiri wallahi waa wax la jeclaado in meel aw soo fariisto dariyaan hogo waa yara xanuuna iska jiro waxa iska ay muxaadaradii wixii yara gaabiyo daraasaadkii dhanaab hogo iska joojinay oo marka bal waxaan u aamusnaa waayay bilicdan iyo quruxdan wallahi markaan arkay xusuus bay gashay xaqiiqatan billah xusuus dheer yaan galay aad baan tafakkur u sameeyay farmeeshi waxaan dhigaan ka maqli jirnay meeshii way qarbudantay goob dagaal bay noqotay oo la isku dhacay bay noqotay oo la isaga soo horjeeday noqotay goob yacinka bay noqotay waxbaan iska maqli jirnay mar walban Allah u bari jirnay meesh waxay ahaado Qoryooley janno ali jir waligeeda waa meel iska barwaaqaysan dad yar oo kooban oo walaalo ah ku nool aad isku jecel diriska tixgelinayo walaalaha tixgelinayo midka buka booqanayo ka maqan u duceeynayo ka warqabo la xiriirayo saayiqa waxa joogto in badan dadkeeda aad ugu dhex soconayso saayiqda magaalada naga hadda ku noolnahay masaayiqda qof waliba dankiisa u fiirsada laakiin masaayiqda magaalada dadka waxay ahaayeen dadkooda ku dhex nool yihiin oo ku dhex soconayaan oo xaafad bay u booqanayaan ay ka warqabayaan waxaan xusuusanahay waliba aniga si gaar ahaan xusuusanahay xaafad ba quraan loo aqrisan jiray waliba xaafada quraanka lagu qatimi jiray suumaatan baa la sameey jiray la soo iimaanayay sida xafladaha hadda la sameeynayo oo kale waxyaabo badan oo diintana yaani oo raali ay ka tahay lagu sameey jiray dawriyaal lagu qaban jiray mawduucyada muallimiinta mashaayikda dadka quraada dadka yaani asxaabul uqulka bay soo kordhin jiray mar waliba waa iska dhigaysan jirnay wada jirnay waynu ku faraxsaneen taageeri jirnay waynu iswalaashan jirnay ilaa haddana wali kama aysan zuulino maadaama foodiyaro yaani dad si qabdaran ama si waxyaabo kale isu arkayaan oo qaab siyaasadeed ay isku haystaan ayaa dib yar ka dhaliyay oo dadkii loo soo gudbinayo oo anaga lana soo gaarsiinayo in halkii ay tahay meel ay qarbudan taho marka sidaa darteeda wallahi wax kala umaana soo fariisanin kaliya waxaan jeclaystay quruxdan iyo bilicdan in ay la wadaago marka waxa weeyaan waxa ay ila tahay dad yaani liibaanta ku dhashay ama ku soo barbaaray oo hadda uu ka maqan yahay uusan arkin bilicdan hadduu arkin uusan u dareensaneyn inay liibaanta Qoryooley ay tahay bal hadda ha ogaado halkan aad u jeedaan quruxdan guryahan anteenooyinkan aad u jeedaan meel kale ma aha يعني بيضوا iyo meelahaas ay idin dhihi maay waa Qoryooley hadaba la socda qudaarteeda iyo waxaasna bal mar baan ka soo hadli doonaa waxa weeyaan Ilaahay u siyaadiyo dad waxa ku jiro masaakiinta u gargaaro Qoryooley Youth Brothers and Sisters la dhahayo dad badan jiro ma yaani iskuulaadka Ayman oo kala aqoonta lagu haayo meel badan jirto oo xanaana iyo dad oo yaani isku madrasooyin la dhiso hadda dadka yaani masaakiinta wax lagu baro waliba lagu raashinsiyo dhar xitaa looga gaadi waxba jirto gadaasheeda la sameeyay laakiin dhigta aan ka maqlaayo qaarkiina la socdaba marka waxa weeyaan bal nimiyo bal waa dadka ka maqan oo magaalada banaankii ka jiro ka warqaba wadankiin inuu nabad yahay inuu basbash u yahay inuu barwaaqo yahay baraari inay dhaxtiilo hadda waxa weeyaan la socda waxyaabo la miisoo gudbinayo ma aha waa kan wadankiina halka ayaan ku soo jara nin gawaaya wuxuu yiri hal erey ku darsanay gawaaba wuxuu yiri anoo jinkii wabagiyo Qoryooley nabad ku joogo teestada u heesta ku dhex jira barwaaqa waa beeruhu iyo yaani doogan iyo barbeeraha ureeno ma leey jiray iyo iskaashatada iyo meelaha ku dhex jiro jini soo jirmaadiyo intuu jaada lila dhacay jareera imuu qaban qosol tago kama siin jaalalay markaan yiri
waa jaahil buu yidhi gabadhii maxaa jiray may odhan jeebkayga oo maranna soo ma tegin qoryoleeyo hablo wada qurux badan ila joogay may odhan buu yidhi ninka gabyaaga ahaa marka si kala u dhigi lahaa laakiin soo asi sheegay inaa u dhigo quruxsan laakiin si aa u kala noo bedeli doona insha Allah salaamade